qaaliga quraacda yar ee fudud ayaan maanta sameynayaa insha Allah ila sii socda sida aan u sameynayo si aad u ogaatiin biidnillah. Welcome again, daawasho wacan haddana soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. akhyaarta sharafta leh waan idin salaamay, kusoo dhawaada channelkeena Cooking with Hayaat. insha Allah saako aroor insha Allah subax wanaagsan walaalahayga qaaliga ah. waxaan sameysanaynaa quraac yar oo aad u fudud biidnillah. quraacdaas waxay daba socotaa fiidiyoogii kan ka horeeyay ee aan soo gelinayay. soo marka waa casho fiidiyoogaas I hope inaad daawateen. waa cashadaas ayay ka hartay. soo marka axbaabii raashinka ama ceeshka wixii kuu soo haro ma ahan in aad daadisid, israafka ma wanaagsana biidnillah. marka asxaabteyda qaaliga ah waxaa jira dad aan haysan wax ay cunaan maanta oo tamaninaya ama rajeynaya inay helaan wax uun ay cunaan. marka axbaabii adiga haddii aad haysatid ha ku ciyaarin raashinka biidnillah. wixii kuu soo haro firiijka gasho, wax kale ayaad ka sameysan kartaa. isla yacni cuntadii oo hal nooc ah ayaad noocyo badan ka sameysan kartaa. marka axbaabii waxaa lis dhaafay fakar iyo ra'yi insha Allah. marka walaalahayga aan jeclahay I hope inaad ka faa'iidi doontaan biidnillah. inta ayaan jeclaystay inaan idin sheego biidnillah. soo marka waa nasiixa ama waano asxaabteyda qaaliga ah. halkan waxaan ku haysanaa waa ukun, 3 xabo ukun ayaa iigu jirta, waa isku dhex yaacday laakiin labaas insha Allah. iyo waxaan ku haysanaa basal cad iyo kaarooto aan soo hoolay. halkan barbarooni, tamaato ama yaanyo ama xabuub aad sidaad u fahmaysid biidnillah. intan waxaan ku haysanaa farmaajo ama cheese biidnillah. maadaama hooyo caruurey leeyahay oo caruur la korsanayo, farmaajada aad ayay u fiican tahay ama cheeska insha Allah. caruurta lafooda ayay korisaa sidaa ila socda axbaabii. marka ugu dadaal ciyaalka yaryar ay soo koraayo farmaajada insha Allah aad ayayna u jecel yihiin. waxaan kaloo haysanaa waa filfisha madow biidnillah. waxaan kaloo haysanaa in yaroo milix ama cusbo ah. asxaabey iminkana waan isku dardareynaa insha Allah ukunta iyo waxaan isku dareynaa qudaartii kale biidnillah. bismillah. basashii ayaan ku darayaa. waxaan ku darayaa barbaroonigii. bismillah. waxaan kaloo ku darayaa yaanyadii ama xabuub adba sidaad u taqaanid maadaama soomaalida ay lahjado badan tahay insha Allah. xabuub ama yaanyo, tamaato waa af English. soo marka afka ayaa iska bartay, raali ahaada asxaabey. waxaan ku darayaa haddana kaaroodkii insha Allah. cusbadii ayaan ku darayaa, kuma badinaayo. bismillah. waxaan ku dari doonaa haddana filfishi madow aad ayay u fiican tahay. mar walbana waan idiin sheegaa ama waan ka hadlaa insha Allah. aniga waan isticmaalaa badanaa insha Allah. bismillah. aad ayay u fiican tahay caafimaad ahaan. marka hargabka qabtid maasha Allah aad ayay kuugu sii fiican tahay. haddii aad shaaha ku karsatid ama mashaari aad ku darsatid insha Allah. sidaa ila socda axbaabi. haddana waan isku walaaqeynaa, si fiican ayaan isku dhex gelineynaa insha Allah si ay isku dhex galaan ukunta iyo qudaarta ama khudradda biidnillah. qaaliga ah maqligii ayaan saliid kusoo shubay, waa ii yara kululaatay insha Allah. haddana ukuntii ayaan ku shubaya iyo qudaartii. bismillah. geesaha ayaa sidaa sorry axbaabi, geesaha ayaa sidaa ugu sameysaa insha Allah si ay u wada gaarto. walahayga dhanka kale ayaan u rogay insha Allah. dhinacii hoose ayaan kor soo mariyay, dhinacii kalena hoose ayaan mariyay. sidaa ila socda axbaabi.
dabkana u gaabay sidaan hore idinkugu soo sheegay insha Allah. Mardhow farmaajadii ama cheese-kii ayaan ku darsanaynaa sidaa ila socda insha Allah. ayaan ku darayaa ahbaabi haddana insha Allah sidaa ila socda. qaylada dariska ka raali ahaada maasha Allah guryaha way isku dhagan yihiin meeshaan daaqadaha aad ay iskugu dhadhow yihiin waa la iska maqlaaya marka sorry ahbaabi. markuu diyaar noqdo ayaan idin tusayaa haddana insha Allah intuu jiiska ku dhalaalayo waan daboolayaa. habteeda sharafta leh hadda waa inoo diyaar maasha Allah tabaarakallah. saxan ayaan kusoo ridayaa kadibna waan ruul gareynayaa ama waan laabayaa biidnillah. kadibna cadcad ayaan usoo jarayaa ama gobol gobol sidaa ila socda sidee kusoo baxdana waad ila arki doontaan biidnillah. asxaabteeda qaaliga ah maasha Allah quraacdeeni sidaa ayay kusoo baxday. markii aan soo dhameeyay waan soo jarjaray maasha Allah si ruul ah ama si yacni duub ah ayaan usoo jarjaray waana soo sharaxay. decoration qurux badan ayaan usoo sameeyay. tufaax ayaan geesaha kasoo saaranay maasha Allah iyo basal cad. soo marka asxaabteeda qaaliga ah markaa cuntada yacni sameysanaysid waxaa la rabaa inaad indhaha ka dherartid marka hore si yacni aadan cunto badan u cunin oona cayl badan uu ku fuulin maasha Allah. soo marka asxaabteeda qaaliga waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen maasha Allah. haddaa nagu cusubtahay nagu soo biir haddaa hore noola sii joogteen asxaabtaada la wadaag biidnillah. asxaabteeda qaaliga ah subscribe-ka noogu dadaala insha Allah hanagala baqaylina biidnillah. anagana wixii aan naqaano oo ilaahayna baray idinkalama baqiileeno insha Allah. yacni wixii wanaag ah waan idinla wadaagi doonaa oo yacni wax laga faa'iidaayo biidnillah. asxaabteeda qaaliga ah please haddii aad ka hesheen like comment iyo share insha Allah. balanteenu waa sidaa intaa marka la kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa salaanta islaamka ee sharafta leh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.